doorasho qof iyo cod in la qabto maxay u baahan tahay kursiga in lagu doorto waa shay dadku u siman yihiin darbigii qabyada ahaayo laba burkeet ama saddex burkeet u dhinteen maanta 10 burkeet yaa u dhiman annaga waxaan ka arkaynaa ku dasasho inuu raadinayo madaxweynaha iyo maaragtay ragga la joogo waa lagu soo dhaweeyay laakiin ku dhaman sharci tan iyo dawladii aadan Cabdulle Cusmaan aadan Cadde ila xukunka madaxweyne Farmaajo ee maanta diiwaanka xukun madaxweyne ee Soomaaliya waxa ku xusan 9 madaxweyne balse 8 ayaa hanaan doorasho ku timid kursiga halka mid ka soo harayna uusan ku imaanin isagol doorashadii aadan Cadde oo bilow ahayd ilaa tii ugu dambeysay ee xukunka ku yimid madaxweyne Farmaajo hogaanka dawladda waxa uu ahaa Luusudii manajirin madaxweyne ku soo laabtay kursiga dalka Soomaaliya ayaa haatan isu diyaarinaya howlaha doorashooyinka madaxtinimo balse waxaan wili cadeyn nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta 2021 inkastoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre dhawaan laalay hadal haynahayd in dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo doonayso muddo kororsi isla markaana ka dhawaajiyay in dalku doorasho u diyaar garoobayo haddana ma cadda nooca doorasho ee dhici doonta qorshayaasha ugu horeeya ee laga sugayay dawladda hadda jirta ayaa waxa tiir u ah hirgelinta hanaanka doorasho ee afka qalaad lagu yiraahdo one man one vote ama doorasho qof iyo cod ah balse ka hadalka hanaankan ee Soomaaliya ayaa hadda loo arkaa mid raqiis ah iyadoo la daliishanayo xaaladda amni mid dhaqaale iyo tirakoob dadweyne oo aan jirin qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dalka oo soo dhaweeyay hadalka ra'iisul wasaare Kheyre ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo inay xilligooda ku dhacayaan ayaa u arka ka hadalka doorasho qof iyo cod ay xilligan inay tahay gogol xaarka raadinta muddo kororsi waxay leeyihiin waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod maanta oo dhan waxa la wada sheekadaas doorasho qof iyo cod in la qabto maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay koow sharci doorasho inuu la ansixiyo labo dadka in la tiriyo alla cod bixin waaye saddex dadka in la diiwaan geliyo codka bixinayo afar sharciga jinsiyada ee dadka codaynaya ee Soomaalida la ansixiyo waxay u baahan tahay ammaanka in la sugo oo shabaab dhulka ay haystaan ama kuwa hadda ay xukumaan oo hadda magaaladii Muqdisho ay nagu haystaan meel kale iska dhaafay in gacantooda laga bixiyo waxay u baahan tahay maxkamadii dastuuriga ahayd ee markii doorashada la isku qabtay kala saar lahayd inay jirto inta qodobay dastuurka in la dhameystiro u baahan tahay la fanlaas gareeyo waxay u baahan tahay wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya meel la saaro wax ayadoona tilaab la qaadin yaa waxaana leeyahay doorasho qof iyo cod aan qabanayna marka riwaayadaas kaalay waa ay kala tashanayna waay waxa loo baahay in laga shaqeeyo in laakiin xukuumadda iyo madaxweynaha isilmaasiyaan oo inaan problem jirin dhan ay ka dhigaan oo wadanka oo ka dhacay oo gobolada qaar ay diidan yihiin xukuumadda la macaamilaan hadana uu yiraahdo doorasho rabaa inaan qabano wax isqaba kara maahan annaga waxaan ka arkaynaa ku dasasho inuu raadinayo madaxweynaha iyo maaragtay ragga la joogo oo qaarkood guddoonka baarlamaanka ay ka tirsan yihiin gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare ayaa 27ka bishan Juun hortagi doonta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya si ay warbixinta doorashada dalka uga horjeediso labada gole ee baarlamaanka waxaana laga sugayaa hadal mug weyn oo ah go'aaminta nooca doorasho ee xigta marka dhinacyo badan laga eego xaaladda uu hadda dalku ku jiro lagana hadlayo nooca doorasho ee xigta ay dadka u dhunduleeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo waxgaradka bulshada rayidkuba ku sheegayaan inaysan muuqan isbedel doorasho ay soo kordhisay dawladdan isla markaana wadada kaliya ee wili dawladda u furan ay tahay hirgelinta hanaanka doorasho dadban oo dhawaanahan lagu soo caanamaalayay